saaka marka hay'ad sagaalkii iyo barkii waxaanu lagu soo wargeliyay inuu soo degay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi annagoo ah saxaafadda madaxa bannaan kana socda Kalsan TV markaanu saaka madaarkay marnay waxaan marnay checkinkii protocolkii qolka VIP-dana lagay annagoo filanay in madaxweynuhu bartaasi kula hadli doono warbaahinta madaxa bannaan TV-ga qaranka ayaa duubtay muuqaalkii qolkaas show kula hadlay saxaafadina qol cidlaa tii madaxa bannaan inta la fariisiyay ay barta ka dareertay madaxtooyadii oo horkacayo afhayeenkii madaxtooyadu bartaasuu noogu yimid ilaa intii aan gudaha ku jirnay qolka VIP-da xafiiska miidiyuhu isagaa na waday qaladka intaa leeg iyo khiyaamada intaa leeg ee safarka madaxweynaha inaanu soo bandhigna amba su'aal laga weydiiyo wixii ay ka soo wada hadleen imaaraadka la qarinayo annagu dadweyne uma garanno bismillaahir rahmaanir rahiim warbaahinta madaxa bannaan aad iyo aad ayaan u salaamayaa halkan waxa ka soo degayay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta safar muddo ku maqnaa dalka dib ugu soo laabanayay warbaahinta madaxa bannaan uma suura gelin inay warka madaxweynaha duubtaan amaba ay warkiisa helaan warbaahinta madaxa bannaan saacado badan ayay madaarka madaxweynaha ku sugayeen mana aha kuwa fidna iyo kicin iyo hawlo wada laakiin madaxweynuhu qaranka ay arkaan oo dabcan hawlaha qaran ee uu soo qabtay ay wax ka weydiiyaan ayaa halkan u yimaadeen taasina uma suurta gelin marka halka waxaan fariin uga diraynaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo aan leenahay wasiir adaa madaxweynaha iyo warbaahinta madaxa bannaan u dhaxeeya inaad arintaas oo cabashadeedu soo noqnoqotay aad wax ka qabato ayaanu jecelnahay oo waliba si degdeg ah wax looga qabto waxaan ku cabanaynaa oo halkan isugu nimi cadceeda aad arkaysaan oo saaka 12 maalinimo halkan soo istaagnay inaan la kulanno madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar dalka ugu maqnaa imaaraadka marka waxa dhacday in la geeyay qol markuu madaxweynuhu saacadii u dambeysay uu soo degayay dadkayga ilaa maanta taagnaa waxa dhacday in qolna lagu xareeyay warkiina uu duubtay madaxtooyada Soomaaliland iyo TV-ga qaranka kaliya wasiirka warfaafinta Soomaaliland halka uu ku sugnaa kamu hadal dadka maanta oo dhan halka taagnaa ee cadceeda taagnaa ee anagoo hablaale ee inamadii le ixtiraamna ma siinin inta qolna geeyeen halkan soo gala ay madaxweynaha taa ka baxay warkiina waxa qaatay TV-ga qaranka iyo wali madaxtooyada Soomaaliland maxaa leeyahay saxaafadii iyo xukuumadda wax dhib kama dhex jirto aan ahayn dad gaar ah oo ka dhex shaqeynaya madaxweynaha iyo saxaafadda marka waxaan codsanaynaa in madaxweynaha iyo saxaafaddu kulmaan oo wixii dhibaato ay ka wada hadlaan ka warbaahinta madaxtooyada horta waxa jirta wax la yiraahdo warbaahinta madaxtooyada oo iyadu muuqaalada duubta warkaasuna waa war tafatiran oo la soo shaandheeyay ayaa loo soo gudbiyaa warbaahinta inta badanna way ku dhaqmaysay xukuumadan cusub iyo tii hore waliba qayb ka mid ah waxaas oo dhan marka la isku geeyo xafiiska afhayeenka madaxtooyada shaqada leh wasiirkuna wuxuu dee maamulaanta guud laakiin xafiiska madaxtooyada leh afhayeenkuna sidoo hadlayay waa la maqlayay oo cidii u baahan cidii aan sii deyn sidoo af Soomaaliya aan aad u wanaagsaneyn marka madaxweynuhuna uu garaaba warbaahinta madaxa bannaan leh tanna madax bannaanida kasoo marka laga yimaado waa warbaahinta iyadu dhayliga hawl gasha ee wararka habeen walba la daawado kuwa la qoraba gudbisa ma aha mulkiilayaashii laakiin waa wardoonkii madaxweynaha warkiisa gacanta ku hayay waana jecel yihiin madaxweynahooda laakiin cidda ku dhex jirtay iyo protocol xumada waliba xafiiska afhayeenka qura ah waxaan oran lahaa hal nala ogaado hal nalana arko xalkeedu wuxuu noqdayna iyaga u taala waxay xalkoodu noqonayo الرحمن علم القرآن خلق الإنسان bishaaro macadka imaamu naafic waxa uu quraanka kariimka kugu baraya hab casri ah oo online ah adiga oo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo bulshoy haddii barashada quraanka loo gali jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxa kamida barashada quraanka iyo higaada علومta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqada carabiga
qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada. isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada ku muuqanaya mar kasta iyo meel kasta. bulshoy ballanteenu waa macadka